halka iga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasto adduunka aad ku nooshihiin program aad u qoto dheer una baahan in aad loo qaado dhiga ayaa maanta idin la wadaagi doona marka Amazon dalkaynu markay imaanaysay amba ay waxaan ay imaanayeen shacabka Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed marna ma ogolaanin dawladii markaas hoggaanka haysay ee Soomaaliya ayaa qalinka ugu duugtay iyagoo markaas aanan si qoto dheer aga fiirsanin way dhacday laakiin waxaan ugu baaqi lahay dawladda Soomaaliya in ay markaas ciidamada ugu horeeyo dalka Soomaaliya laga saarayo amba dalkayna Soomaaliya inay ahaadaan ciidanka Kenya iyo ciidanka Ethiopia inay markii ugu horeysay Amazon ciidanka la saarayo inuu noqdo amba ahayninba haddaba markaas shalay sidaan ugu ogolaana maantana aan ugu diidnay dalkayna ay aga baxaan ayadoo markaas loo fiirinayo si diblomaasig ah waxaan ognahay Kenya inay 400 oo qofood oo Kenyaana inay afka ay u xirta markaas ayadoo markaas dukumiinti ka dhigayso in ay banaysato inay ma arkin oo ay dirbi ka dhisto labada xad ee Soomaaliya iyo Kenya iyadoo markaasna dhulka Soomaaliyeed ma arkino aad isugu ballaarayso laakiin waa sahal sida cadaawad loogu beero lama shacab oo isku milantay oo xabada ceesha isla wadaagto isla ganacsato iska ka jecel sida cadaawad looga dhaxabuuro waa si sahal laakiin si sahal say hadda walaal u yihiin loogama dhigi karo 100 sano amba 200 sano taas fariintaas waxay ku socotaa hoggaanka dalka Kenya iyo hoggaanka Soomaaliya inay isticmaalaan diblomaasi markaasna labada shacab aanan lagu kala geenin oo aad u soo jecel Kenya markaas waxay dhamaysay iyadoo diyaaraday iyo wax kasta ay ku duqeyso dalka Soomaaliya xiriirka soo jireenka Soomaaliya inaynan xumeeyeen inay Kenya xumaynayso way noocadiin maanta shacabka Soomaaliyeed ishayna waxaya marka waxaan u diri lahay siyaasiyiintayna iyo hoggaankayna waxaan u diri lahay inay markaas ay quwad midaysan siyaasad midaysan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ognahay meel kasta ay joogaan oo hanqal taagayaan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qortaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo aniga kamid ahay oo saas ugu hanqalka taagayo in markaas laga dhabeeyo riyadooda si ay cudad ay ugu noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed generaalyada hadda joogaan ma arkino waxbarasho Soomaaliya oo adag oo ciidameed haastaan inaan ka faa'iideysano iyo kuba adduunka ee diblomaasiga ee Soomaaliya markaas ka kabayo ma arkino arrintaas qotada dheer leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadda shaqal galay howl galane waxaan u dirayaa inay si mutadawacnimo ay u abaaraan markaasna ay leel iyo nahaar shaqeeyaan iyo markay fasax yihiin markay shaqada ku jiraan si qoto dheer inay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeedna aan hal meel isaga soo jeesano oo markaas waxa dhibaatada ku ah amniga markaas si reality loo abaaro waxaan sadhihi lahay doqon waa kula dhashaa hoggaanka dalkana wuu heliyaa laakiin 4 sano ayuu hayayaa kadibna wuu isaga tagayaa dirbi xoog lana uu ku dhigay taasna waxay noqonaysaa dhibaato nagu timaado haday aan dhalinyarada Soomaaliyeed nahay waxaan ognahay
Somaliland ama gobollada waqooyi nin walba sidoo u yaqaan in dhalinyaradoodii 30 sano maantay ay waagaleynaa ay leeyihiin ayagoo markaas aanan shacabkoodii ku qancihaynin dowladda markaas ay sheeganayaan maadaama aanay aqoonsanayn gobollada waqooyi ay sheeganayaan waxa waaye horumarkii dalka ayay Soomaaliya ay diidaysaa Soomaaliya diidi mayso horumar dalka Soomaaliya ku yimaadee aad ayay ugu faraxsan tahay laakiin intaad nin Soomaaliya oo kula dhashay aad wax u diido aad ku ajaanimana aad u ogolaato taas waa doqonnimo hogaankii dalka oo Amisom keen camal ayaad naqanaysaa waxba kama dugnaanaysid amba aqoonyahan markaas ku takrifalaya dadkiisa iyo dalkiisa tahay 4 sano ayaa joogaysaa kursiga waxaad ummadda iyo shacabka iyo dalka iyo dadka aanan macquul u ahaynin naha gali 4 sano ayaad goobaysaa waa 1 2 3 4 wax weyn maaha xildhibaanada markaas amba aqoonyahanka baarlamaan isku sheegaya gobollada inay si qoto dheer ay hor yimaadaan borogaraamka noocaas oo dhaqan galayo amba ku wax tar u leh jiilka soo koraya iyo halka maanta jiraba ay markaas ay ku fadhido qiimi ay ugu fadhido ay ahaato iyo dhaqaale ahaan dalkan wuxuu u baahan yahay muhiimadda koowaad la siiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muhiimadda lamaadna la siiyo dhaqaalaha ama muhiimadda koowaadba dhaqaalaha la siiyo midda saddexaadna la siiyo danyarta si ay kor ugu soo koraan war waxaana laga dagaalamay 20 sano ayaa waxaana laga dagaalamay aqoonta laakiin dadka Soomaaliyeed mayna yeelino waa wada aqoon isha fartiga giriya la yiraahdo nin walbaba aqoon ayuu la yimid hadda mid adduunka ka hela naqatay iyo hadda mid aan u dul qaadano dalkayna aan ku dhaxbaranaba haday naqato waa ogtihiin hooyada Soomaaliga iyadoo suuqa fadhido oo qadaynin oo quraacanin ay cunugeeda iskoolka ka dhiibayso cunug saas wax ku soo bartay aqoon ku soo bartay ay habartiis iyo adoogiis dhiseen inta muwaadinimo oo lahaan karo waa fahmi kartaa dhibaatada oo wax ku bartay iyo jidko xabad ka dhacayso hadda waxaa hireen madaahibta dalka ee aqoonta dugsiyaasha Qur'aanka Kariimka in ciyaalka qaarkood meelaha ayna dawladda joogin in madaxa looga dhaqaayo siiba geyga Soomaalida dhulka baadiyaha ah markaasna loo kuur gala dharcada ay u kuur gashaa markaasna ay ka nahyiso dadkaas ma arkino manaahijta Qur'aanka Kariimka la dagaalamayo iyo gaar ahaan manaahijta waxbarasho ee dalka Soomaaliya ka jirto taasna inuu hoggaanka dalka uu isha ku hayo aqoonyahankan uu isha ku hayo way aragana uu isha ku hayo shacabka Soomaaliyeedna ay isha ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeedna ay isha ku hayaan waxaan ognahay wadamada diriska haddii la fiiriyo 50 sano ayay ku dhowdahay cadaawadii diriska laga abuuray labada dal iyo labada shacabna ilaa waagadan si kasta ay hoos u tagaan ama si kasta ay cirka u joogaan inaana cadaawadii aan sahal lagu jaray karin ay hadda ay 100 sano ay gaarayso aynan isu soo dhawaahaynin shacabka ay mar walbaba ay waxa kala aaminsan yihiin ay aad u kala fog yihiin taasna waxay ku socotaa hoggaanka Kenya iyo hoggaanka dalka Soomaaliya ayay si qoto dheer ugu socotaa inaana shacabka dhibaato laga dhax abuurin amba cadaawad loo abuurin maadaama uu cid kastaba meesha uu ku beeray insha Allah ta'ala khair ayay ku dhamaan doontaa laakiin hoggaanka dalka waxaan ugu baaqayaa inay diblomaasiga iyo adduunka inay si diblomaasiya leh oo furan oo daahfuran inay markaas ay ula macaamilaan markaasna cidii xiriirka xumeeyayso ay si toos ah iyaga hortagaan waa baahanaan waqti looma cuno ay markaas aynan ruux reeban ilaan cida ayada nabad ka rabin nabad lagama raadi karo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh